dad caraysan ayaa soo istaag ku sameeyay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare duleedka deegaanka Ceelgaal ee magaalada Beledweyne wariyaheena gobolkaas Xuseen Cabdi Jimcaale ayaa warkan Beledweyne ka soo diray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare isla markaana ku sii jeeday deegaanka Jawiil oo 20 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay suurtaag kaga hor yimid dadka deegaanka Ceelgaal oo 13 kiiloomitir waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne dadka deegaanka ayaa suurtaag ku sameeyay wafdiga madaxweynaha waxaana deegaanka ka dhacay banaanbax lagu jaray dhammaan wadooyinka taayiro dadka deegaanka Ceelgaal ayaa la sheegay inay ka gadoodeen wax qabad la'aan maamulka Hirshabelle dadka deegaanka ayaa xaqiijiyeen ciidanka dawladda iyo amisom oo dhinaca iyo dadka deegaanka uu dhaxmaray israasayn kooban waxaana ku dhintay hal qof oo kamid ah dadka deegaanka dhanka kale warar hoose oo aan ka helay maamulka ayaa ii sheegay inay jiraan khasaare soo gaaray madax ka tirsan Hirshabelle inkastoo aan la ogeyn wax rasmi ah ee dhaliyay qalalaasahan haddana dadka qaar ayaa inoo sheegay in safarka madaxweyne Waare ay ku hoos jiraan arrimo siyaasadeed oo saameyn ku leh dadka deegaanka waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Waare uu safar ku aaday deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimo ee Hirshabelle Xuseen Cabdi Jimcaale wararka RTN Beledweyne